الله إلكيو قبرا السوغي مركي اختبار سؤاشو أتكان أفكيغا كوبيك إسلام نمادون أفكيغا كوبيك إسلام نمادون الله أدقان وآمنا يو أود سري سواتادي إلنا حريسات لونه إيك إلنا حريسات لونه إيك إلنا حريسات لونه إيك مركي أدنكيو أوغادو هادليسا أفئيو استفاع بأي أودمان الله أستركا جوين إيقوداق الله أستركا جوين إيقوداق الله أديك. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك، مكان الهدى والرحمة، وشرع لنا كسب المال الحلال، وحرم علينا كسب المال الحرام، حيث قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، القائل: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، متفق عليه. أما بعد، ولا ريال إله بمحد سكاله اللي هلكا سكان كاني مسوا في الجيي إن أنا سكو إمانو غوري أو غوري سكميتا سيدا رسوعتانا ماشي جوجنا وماشي خيرك إي بركاتك إي نحريست تالي وملائكتنا جوجتا. مسجدك مركي لسوق جليا وحلوك سوق جليا دعاء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، إن إلهي ويديسينو أبواب ديسا ونحرسته وهي نحرستي بمشان تعالى الباب كما كان كبحيننا اسل الدعاء دي انت لميت او حنكون درينا اللهم اني اسالك، اللهم افتح لي ابواب فضلك، ومعنى هذا هاي إلهي يفر ان ابواب ارزاقنا. مسجد مركي سو غلينا waxaan raadinaa naxariista Ilaahay markii aan ka baxin waxa ku duceysanayna Ilaahay noo furo abwaabada arsaaqada. الله سبحانه وتعالى سيرو كلمة أنت جمعة مركي تكون حدا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. مالك لا تسوي إله حوكد جاي فضلي أو فضلي سكميته ديارات إله سيدتك إن لا تسذنا مهمة هاي وكد جاي عبادة سكدي كميته هاي أو معاملات كميته هاي أو قف نولش يسيب حرنته هاي. محاضرة وسوجين دونا شيخنا دكتورك شيخ عثمان علي فارح وعنوان كيدون ياهي المال الحرام iyo sidii looga fogaado maalka xaraanta ah iyo sidii looga fogaan karo. waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka sheekh. تفضل وانت مشكور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع إن شاء الله تعالى أي أخيارتي علماء أسر دورين إن وحلقي هذا مانتي مالك حارانتا iyo sida looga fogaan karo. waxaan uga hadli doonaa insha Allah taala sidaan soo socota. marka koowaad waxaan sameyn doonaa haddii Ilaahay idmo
marka koowaad insha allahu tacaala waxaan samayn doonaa maalka xaaraanta ah iyo dhibaatada uu diinta ku leeyahay ayaan waxaan insha allahu tacaala marka hore sheegi doonaa maalka xaaraanta ah iyo waxyaabaha ka hadlaya oo nusuusta ah sida aayadaha iyo axaadiista qeyb kooban oo kamid a maadaama waqtigu uu yaryahay. kadib waxaan isku dayi doonaa qeybaha iyo noocyada iyo siyaabaha ay u kala baxo maalka xaaraanta inaan wax un ka tilmaamo. kadib waxaan isku dayi doonaa haddii la idmo in dhibaatada ka dhalata maalka xaaraanta ah inaan taabano, haddii waqtigu uu saamaxo inaan ku darno tusaalayaal la fahmi karo oo cadcad oo sheegaya laga bilaabo nabigeena salawaatullahi wasalaamu calayhi ilaa asxaabtii taabiciintii kuwii ka dambeeyey sidii ay isaga ilaali jireen maalka xaaraanta ah. kadibna insha allah waan soo gunaanadi doonaa aayadaha iyo axaadiista ka hadlaya maalka aada iyo aada u fara badan yihiin, laakiin hadba dhinac iyo meel gaar ah ayay nusuusta iyo aayaduhu iyo axaadiistu hadba dhinac ayay ka nalka uga shidayaan arrintan oo dhinaca hadba laga fiirina. marka insha allah tacaala maadaama ay fara badan yihin waxaan isku dayaynaa meeshiiba un hal ama labo oo kale inaan kasoo qaadano. sida aada ogtihiin maalku waxyaabaha loo sheego dadka in la raadsado maahan, waa wax ku daaban oo ku abuuran oo markuu dhashaba xoola raadis uu la soo baxaabo, markuu u yimaado inuu wax raadiyo oo uu wax helo oo uu wax milkiyo oo isagoo wax yeesho isagoo ay arrintaas ku jirtooba adduunyada yimaadaan. oo maahan marka wax loo sheego sameey, tusaale ahaan salaadoo kale tukaan la leeyahy, ilaahay ku xirnaaw, dadka ha dulmin, diinta ku toosnaw, waxaan oo dhan waa in isaga loo sheego oo la faro oo ilaahay caabud la yidhaah. laakiin maal raadso qofna qof u sheegi mayo, qof walba waa rabaa waana raadinaa. waxaa un kala duwan qaabka iyo farsamada ayaa lagu kala bedelan yahay, laakiin in qof walbaa rabo uu jecel yahay oo uu raadinayo doodu kama taagna. sababtoo ah ilaahay ereyga uu u isticmaalay xoola jacaylka shay kale uma isticmaalin. watuxibuuna almaala xubban jamman, macnaa jacayl in farihi ka batay qofku inuu wax helo oo uu wax milkiyo oo isagu waxaan leeyahay waa waxay gaareen xad aan marnaba aan fududeyn. kaliya islaamku marka muxuu sameynaa qofku maadaama ay hortiisu furan tahay oo wax alla wuxuu arko inuu helo isagu rabo, diintu waxay leedahay kali ah nidaam iyo sharci ayay u dejineen. markaad rabto inaad wax yeelato oo aada wax hesho kali ah waxaana iska ilaali, waxa aada helaydana sidaan u raadi. waxaad rabto hel, laakiin nidaamkan iyo shuruucdan raac. laakiin la dhihi maayo xoolo raadi iyo xoolo jeclaw iyo qofku isagaaba taas yaqaan. qur-aanku meel kale wuxuu ku leeyahay wainahu lixubi اlkhayri la shadiid, macnaha qofku xoolo jacaylka farihii ka bateen. xooluhu maal jacaylka iyo maaragtay qofku inuu wax milkiyo oo wax yeesho siduu u jecel yahay waxay ka mid tahay dhowr shay oo qofku uu jecel yahay inuu ka fara qabsado oo aan waxba dhaafin. maxay tahay? waa waxyaabo adduunyadan ku socoto oo haddaan dadkan la jeclaysiin aysa adduunyadii xataa si fiican u shaqaynayn. laakiin waxaa la rabaa jeclaantaas la jecel yahay inay noqoto mid nidaam iyo qawaaniin iyo sharci mid ku socoto ee aan ahayn mid iska furan oo qofku intuu rabo uu iska heli karo aysan noqon. qur-aanku muxuu yidhi
يقول الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات waxyaabaha shahawaadka la yiraa ayaa dadka loo qurxiyey oo aad loogu suugayey oo aad maaragtay aad soo jiidashadooda loo badiyey. maxay yihiin shahawaadku? min annisaa oo ilahay ka bilaab dumarka walbaniin iyo ilmihii markaasa waxaa lagu xijiyey والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة مالك. marka maalku wuxuu kamid yahay waxyaabahaas shahawaadka oo dadka loo qurxiyey oo aad maaragtay loo sharxay oo dadka soo jiidanaya oo magnetka wata iyadoo dadka xoolo jacaylkaas uu yahay wax ku daaban oo jirkooda la socda ayaa haddana waxaa barbar socda adduunyadii ma ahan adduunyo qofku uusan dhibaato la kulmayn oo xaaladdu iska qabowdahay maaha ee waxaa taas garab socda marar badan xaaladii ayaa adkaanay dhaqaale noloshii waxay noqonay nolol aad maaragtay mucaqad u ah oo complicated ah maciishadii cariiri ayay noqone dadka qaarkood uma jeedaan meel rajo ay ka bidhaameydona ma arkaan dadaa ka jiran wuxuu cunuu raadinaa meeluu deguu raadinaa wax uu horumar ku sameeyo raadinaa hortiisana wuxuu arkaaba in albaabadii dhan xiran yihiin marka laga reebo albaabka xaaraanta isagoo iska furan yahay mar walba isaga albaabka xaaraantu markuu qofku meel masaacad alla saacadda uu rabo ayuu geli karaa markii noloshu marka sidaas u adkaato oo xaaladdu qofku ay cariiri ku noqoto waxaa laga yaabaa inuu istuso weyga keliya ama qaabka keli ah uu uga bixi karaa inay tahay inuu waddadan isku qaado oo waddadan xaaraanta maalka xaaraanta raadintiisa inuu galo laakiin hadduu galo maxaa ka dhalana nabigu wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ummad walba wax uun ayaa lagu fitneeyaa oo lagu ibtileeyaa oo lagu tijaabiyaa qolaba wax uun cillad gaar ah oo ka bedelan cilladaha dadka kale leeyihiin oo ayaga siyaado u ah oo si gaara ayagu ugu tilmaaman yihiin ay ummad walba leedahay wuxuu leeyahay nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ina likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati almaalu ummad walba waxay leedahay shay fitna ah oo ku imtixaanan tahay oo ku ibtilaysan tahay oo aan laga karin ummadeydana arrinta maaragtay ay fitnadu ay meesha uga imaaneen waxay tahay xagga maalka xadiidkaas waa xadiid uu imaam axmed ibn xambal iyo culimo kale ay soo warinayaan haddii fitnadaas marka qofka uu is-ilaali waayo oo uu maalkii xaaraanta ahaa galo sidee diin ahaan loola dhaqmaa nabigu wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sida xadiid bukhaarigu uu warinayo ku sugan oo laga soo warinayo gabar saxaabiyada oo la yidhaha khawla bintu caamir alansaariya wuxuu yihi ina rijaalan yatakhawaduuna fi maali illahi bigayri xaqin falahum annaaru yowma alqiyaama ina rijaalan oo nabigu isticmaala rag ujeedadu maahan ragga kaliya oon dumarku ku jirin maahan ee waxaa laga wadaa rag iyo dumarba bimacnaa waxaa jiro yihi nabigu dad
isticmaalayaan oo ku tasarufayaan oo ku takrifalayaan maalka ilaahay laakiin si sharci darro ah oo aan xaq ahayn oo aan sax ahayn u isticmaalayaan oo ugu takrifalayaan kuwaas maxay leeyihiin falahum الnaaru yowma alqiyaama qiyaamaha waxay leeyihiin naar kow nabigu wuxuu sii sheegay iyadoo dadku maalka jecel yihiin oo xaaraantu ay weliga jirtay haddana inuu imaan doono waqtigaas nabigu u joogay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ka adag oo dadku aysan shaqo ku lahayn inay fiiriyaan waxa ay helayaan ma xalaala mise waa xaaraan laakiin ay muhim tahay inay wax helaan nabigu wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi la ya'tiyanna cala annaas zamanun laa yubali lmar'u bima akhada almaal am min alxalaali am min alxaraam rawaahu albukhaariy nabigu wuxuu ku dhaartay waxaa imaan doono yiri waqti qofku uusan u aaba yeelayn meesha uu maalka ka kasbanayo inay xalaal tahay meel sharciga waafaqsan oo sharcigu ogol yahay inay tahay iyo inaysan ahayn uusan u aaba yeelin ee ay tahay uun hortiisa waxaa ka muuqdaa inuu wax tabcado oo u wax yeesho oo isagu wax milkiyo taasaa muhim u ah waxaana ka xaaraana keli ah wixii u gaari waayo shalayaan ragga badankooda waa joogeen ama raggan waxaan shalay u sheegay nin qola dacaydinaya wuxuu yidhi inaysan waxba sadaqaysan raba inuu waxooga ku tilmaamo wuxuu yidhi wax ayaga sadaqa lagu tilmaami karo waxay la baxaan uu yidhi wax ay waxba ka qaban waayeen markay dhacaan sokor markay ciid uga dhex daadato oo aysan ka soo bixi karin haddii galley iyo ay ka daadato waad soo aruursan kartaa laakiin bacaadkii haddii sokorta ku darsanto waxba lagama qaban karo markaas waxay yidhahdeen sadaqo macnaa dad waxaa jira markay rabaan waxaan waa xaaraan waxa xaaraanta ka ay tahay oo keli ah waxuu isagu gaari waayey inta raadiyey oo albaab walba garaacay markuu isagu ka samro kaasaa xaaraan la yidhaha laakiin hadduu isagu qaban karo uu heli karo kaas xaaraan lama yidhaha waqti saasa oo waxaa la gaari doonaa dadku aysan u aaba yeelayn meesha ay maalka ka raadinayaan marka maalka aakhiro intaan la gaarin adduunka ayaa horta marka hore dadku waxay u kala baxaan laba qaybood markii xoolihii la raadinayo oo qofku inuu wax yeesho uu rabo qolo waa qolo isha ku hayaan xoolaha iyo maalka ay helayaan meesha ay ka helayaan ma tahay waddo nadiif ah oo sax ah haddana isla markaasna isha ku haya meesha ay ku bixinayaan ma tahay waddo sax ah iyo qolo ay ka khariban yihiin qolada ay wax ka khariban yihiin maxaa ka khariban saddex qaybood wey qolo waxay ku fiican yihiin marka hore maalka helitaankiisa aada u controlaan waxaan waa xaaraan midkaas shubha ku jirta xoogaa madmadooba ku jira waa la isku haystaa xalaashiis iyo xaaraantiis waa ka fogaadaan laakiin waxay ku ebtelaysan yihiin ku xun yihiin xoolihii faraha badnaa oo ay saas kusoo aruuriyeen uma aaban yeelaan hadhowita meesha lagu bixinayo oo halkaas cilladu ka haysataa qolo waxaa cilladu ka haysataa soo helitaanka hore laakiin waxaaba dhici karta inuusan iskaba bixinba oo inuu wax aruuriyo maahana uusan waxba saasoo ka bixin oo dhibkiisa ugu badan uu yahay waddada maalku ka soo galay qolo saddexaadaa jirta oo dadka ay wax ka khariban yihiin ah labada dhinac waa ku khariban yihin maalkan helitaankiisana uma aaba yeelo meeshuu hadhowbita ku baxayana uma aaba yeelo marka halhal loo tiriyo afartaas qaybood ayay dadku noqdaan aakhirana maxaa dhaca aakhiro labada albaabba waa lagugula xisaabtamaa albaabka uu maalku kaa soo gelayo xisaab adag ayaa la marsiinaa albaabka uu ka baxayna intii oo kale aa laga rabaa
marka kaliya maahan inuu xataa qofku iska ilaaliyo helitaanka kaliya maahan ee meesha uu ku bixinaa sax ma tahay. hadduu ku bixiyo waxyaabaha xaaraanta ah laakiin isagu uu dhiiggiisa iyo dhididkiisa uu maarata ku keenay maalkan meeshaana lagu ciqaabi karaa. hadduu markii hore uu meel qaldan ka keenana waa sidoo kale. marka dadka qofka waxaa la rabaa inuu ku xisaabtamo in uusan haba yaraatay wuxuu markay maal tagaan shilin walba iyo taano walba in lagula xisaabtamayo halkeed ka keentay halkeedse ku bixid. marka hadda waxaa runtii aada moodaa in aan ku jirno waqtigii nabigu uu sii sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo dadku ay iska fududaysanayeen maal helidda iyo xoolaha aroorsigooda oo dad badan ay ku dhaceen maalkii xaaraanta ahaa oo arrintaasu ay si fiican ay u rumaynaydo ay u cadaynaydo warkii nabigu hadii aan sheegnay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkii bukhaari ku jiray layatiyana cala annaasi zamaan laa yubaali almar'u bima akhada almaal am min alxalaali am min alxaraam. maalka xaaraanta ah waxaa laga yaabaa qofka inuu si gaar ah bis u yaqaan. maalka xaaraanta ah wax farihi ka batay oo wejiyo kala duwan leh, noocyo kala duwan leh, siyaabo kala duwan ku yimaado. laakiin waxaa laga yaabaa qofku inuu meel gaar iska ilaalinayay laakiin meelo fara badan oo usan u oqoonba maal xaaraana inay ka socdaan. waxaa laga yaabaa qofku meel tusaale ahaan qof caadi ah oo soomaaliya oo weli diintiisa maarata raje iyo damac kale iyo islaamnimadiisa doofaar ma cuntaa haddaad tiraa ama aad arrintiisa weydiido arrintaasu meel ka dhac farxun inay tahay aada inuu isaga kontaroolo. doofaar mahana wixii xataa u eg. anigu waxaan arkay geedaha sausageska la yihaha hilibka la dhodhoobay ayay mindhaa dadka qaar waxay arkeen isagoo doofaar laga sameeyey. dadka qaar muuqaalkiisa hilib kale oo xataa midka lo-da iyo midka ariga iyo xataa afka geli maayaan. waxay u haystaanba marba hadduu kii muuqaal eg yahay aniga hay dhaaf. heerkaas isaga ilaalina waa sax, waa arrin ku ammaanan yahay. laakiin waxaa laga yaabaa in qofka sidaas sameynaya oo masaajidka safka hore ah haddaad lacag yar ku ammaanaysato inaysan mar dambe ka soo bixin oo qir iyo qir sootaan kuu soo celiyo maalin hebla oo ka dhaarto inuu lacagtii kuu soo celiyo mar haddii jeebkiisa gasho is waxba soo noqon. haddaad ganacsi isku darsatiin wixii ay is cunaan oo dukaanku khasaaro asagaa jeebka ku shubaa hadduu rabo. haddaad mas-uuliyad dowladeed loo dhiibo 5 daqiiqo uu bilaabayo in uu xoola tabcado. waxaan aada uga yaabay nin aan isleeyahay waa ragga aan aqin oo dadka aan isleeyahay ragga masaajidka iyo nin xoogaa ron u ahaa ayaa hadda ka hor mas-uuliyad loo dhiibay. mas-uuliyaddii marka loo dhiibay ma dhammayn 2 bilooda isleeyahay qiyaasta. inta mashruuc oo ninkaasu waday iyo inta howladu ku jiro iyo orodka iyo gulufka iyo dhididka ka baxaya meel hebla aniga gacan gelina shaqa alla shaqada rabto waxaad rabta iyo shay ku leeyahay aniga ana cilad bixina intaasoo mashruuca wadaa. marka dal dhan oo for sale ah macnaa iib ah oo adigu halkaa kaa anfacda ma dabakaayad ka rabtaa ma dabaqaad ka rabtaa adiga ku jirtaa wasaarad miyaad rabtaa. dal dhan oo for sale ah hadba intuu gada karo oo qof walbaa gataa. waxaa laga yaabaa ninkaasu in halkaasu madowdahay sujuudda maaratay dhulkasu u wahayay intaas karin madow ay noqotay oo nin xaaraanta aan cunin uu isku haysto. ko mid kale safka hore isaga salaada subax haddaad timaad safka hore u fadhiya salaadaha kale iska badaayba. laakiin daawada dhacday
iyo raashinka dhacay ayuu dadka siiyaa dadka uu sumeeyey oo uu ku baabi'iyey balaayada suntaha oo ka gado ilaahay keliya u xisaabin uma malay inuu xaaraan gado wardigiisu haystaa masaajidkiisu ku jiraa wax ka kale lama mid kale wuxuu u haystaa inuu xalaal kali ah uu xalaal miirad yahay laakiin khiyaanada iyo wax isdabamarsiinta iyo farsamada iyo dhibaatada uu wax ku raadiyaa xadkii ka baxeen markaad weliba meelahaas tagto dadku aada u baahan yihiin waxaad arkay wax aada runtii aan wadnaha la sii karin meelahan marka la yimaad dadka wuxuu ka maharaan dadkii xataa kii roonaa lahayo isdhihi lahay xalaasha raadi waxaa laga yaabaa inuu sababsado saaxiibadiis iyo qaraabadiis iyo dadkii halkaana la imaanaa wax alla wuxuu ka shaqay karo qofka uu ka shaqeyna wax alla wuxuu ka shaqey karo ayuu ka shaqeyna waxaa laga yaabaa inuu tagsiilo yahay meel la yaqaan oo caan ah oo xumaanta waxaan ahayn aan lagu qaban ayuu dadka usoo daabulahu keenaa hadhowitana waa ka celiya ajarka wuxuuna sameeyaa nin maaragtay xalaal miirada oo shaqo nadiifa ka shaqaysta oo weliba shaqadaas taksiga salaadaha iyo ku dhowrtaa oo wuxuu u doortaba oo warshadaha iyo u aadi waayey in salaaduhu iyo ka tegin waa ku fiican yahay siduu salaada u dhowrtay laakiin hawsha salaada ku dhowrta hawl salaad lagu dhowrto maaha macnaa meelahan oo kale ma aqaan aniga dalkan oo kale laakiin ingiriiska oo kale iyo marka la joogo nin tagsiila oo waxaa laga yaabaa waxa uu ka shaqeeyo ilaahay keliya ay u xisaaban yihiin inaad aragto meelahan oo kale waxaa laga yaabaa qofku marka waqtiyadan oo kale la gaaro qaar waxay ka shaqeeyaan geedaha christmaska geedkiisa geedahan maaratay geedkan diinta oo lagu dhajiyo nalalka qaaraa soo jaristooda iibintooda sharaxaadooda dadaa laga yaaba inay risaq ka raadiyaan warshadaha hilibka xaaraanta iyo doofaarka qaaraa kule anigu ma cuno gacanteydana ma saaro glofisaan gashadaa doofaarka waan xamaala waan daabulaa kaliya anigu meelaan saaraa gacan mana cuno yaa yidhi haddaad cunto kaliya xaaraan qaara waxay ka shaqeeyaan dhalada khamrada lagu cabo oo aan wax kale lagu cabin oo shirkad gaarahab loo sameeya shirkadda khamrada sameeya dhalooyinkeeda oo aan wax kale loo isticmaalin ayuu ka shaqeeyaa anugu khamri ma cabo margadoo kuleeyahay laakiin dhaladan bisaan anugu ka shaqeeya o tiri farihii ka batay waxaa laga yaabaa in uusan u malayn inuu xaaraantii ku jiro bangiyada iyo arrimahooda iyo ribada iyo dhinacaas marka la yiraa taasu warba male ninkaan iyada cunin boorkeeda iyo habaaskeeda ribada ayaa soo gaaray qolo waa reer magaal hadda reer magaalku cay maahan reer magaalku waa wax fiican lakin waxaan ka wadaa waxay fahmeen luqadii iyo magaaladii dhex galeen waxaa laga yaabaa inay hawsha arrintu iska tusto meesha lacagu ka dhowdahay inay tahay qamaarka qamaarku asagaa boqol nooca dadku waxay u yaqaanin meelaha kasinada iyo layidhaha meelaha waaweyn oo dadka lacagleyda oo qamaarka dhigtaa oo keliya u yaqaan maaha keliya mid waxaa jira warqado yaryar la gato oo nambaro iyo hadday kuusoo baxaan lacag lagu helo ha lootada iyo hawlahaasuu ku jiraa kistiisa oo dhiibtaa wuxuu ku raadiyaa inuu lacalla inaad ku heshaa dhici karto leey soomaaliya waa jiri jirtay iyadoon xalaal iyo xaaraan waxay tahay dadka badankood ba oqon yaa nasiibaa loo baktiya nasiibaa loo yaqaan lacagaad la baxe lacagtaadii ama waxaad ku hele ama waxaad ku weyne waa xaaraan laakiin lama oqon dadku
dadka carwa la yidhaaho markaan yaryarayn ayagoo kumanaan ahay dadku soo galaan lacagtaadaad la bixi waa ku ridanay inaad waxeshana waa suurtagal in laga dirto oad waxba helina waa suurtagal khalaas weli marka waa sideedii ilaa hadda qabaarku wuxuu isku bedelaba isagoo ah electronic isagoo lagu cayaaraa jira oo aad halkaasba lacagtu ay ka soconayd oo midkii hore oo laysla yiqiinba laysla dhaafay qaar lacagtu waxay la gashay dalkan oo kale waxaa laga yaabaa ma aqaan anigu xaaladiisa inaysan fududeyn laakiin dalalka qaar waxay la gashay in ninku yidhaha islaantii dowladda u sheeg hay-adaha lacagta bixiya odagii waa isdagaalnay habeen dhaweedan maaragtay nala kala jiiday nala kala qabtay mar dambena isma arki karno marka waxaan rabaa in aniga xaaladeyda si gaara la iila dhaqmo oo kaar la ii sameeyo oo cayrtii aniga lay siiyo ninkaasna ismaba aragnaba anu dalkan nidaamkiisa ma aqaan laakiin meelo kaloon ku noolaa jiray wixii foolxumo ka dhacay ilaahay keliyaha ogaay iyo dhibaatooyinkay dhashay intaasna maxaa lays leeyahay ninkuna xoogaha soo raadiyo gabadhiina xoogaha soo raadido waxaas inta laysku daro waxa lagu sameeyo weli waxaa laga yaaba waxay saas u sameynaan waxay yihiin waxaa laga yaaba inay yidhaahdeen ku marmarsiyoodaan ilmihii oo yaryar ayaan diintoodii ilaalinaynaa oo la cararaynaa oo aan diintooda badbaadinaynaa marka wixii guri loogu dhisi lahaa iyo wixii cidda lagu maaragtay lagu ambabixi lahaa ayaan aruurinaynaa marka lacagta ay aruurinayaan waxay u haystaan lacag ay ilmahooda diin maaragtay diin ku barayaan oo ay mustaqbalkooda ku fiicnaysiinayaan ayay u haystaan laakiin waa arrin lagu halaagsamayo qaar waxaa jira shaqa tuugahay ka shaqeeyaan dowladdii tusaale ahaan hay-adaha ku shaqada leh dadka inay siiyaan markaysan shaqayn wax siiyaan waxaa laga yaabaa in uu yiraahdo anigu waxba shaqa ma haysto shaqa raadinaan ahay laakiin shaqa tuugaha ka shaqeeya midaa dukoon weydiyo yiri sheekh ma banaan tahay shaqa tuuga inaan ka shaqeeyo sheekh adaa ka jawaaba aad buu ogtahay inay tuugada markaseed weydiin aniga xataa xayawaanka garta inay marmarka qaarkood inay wax sharci darre yihiin mukulaasha ama bisada ama yaanyoorta nabas u yaqaan haddaad hilib siido halkaasi la fariisanay waa ogtahay in ay waxaan xalaal yihiin ayadu sharci inay ma sharci yihiin oo la ogol yahay ogtahay halkaasi la fariisanay laakiin hilib meel la dhigtay ayadu hadday xaddo 10 guri ka gadaal inta la tagto oo soo cunto kasoo aftiratay soo noqon waa ogtahay xaaladdu inaysa arrintu fiicneen marka hadda u fiirso qofku waxyaabaha xalaasha dayibka ah waxaa laga yaaba weligiis inuusan ku weydiin laakiin midda xaaraanta asbaa ogyahay jirkiisa wadnihiisa iyo iimaankiisu uu garaaca wuxuu leeyahay arrintaanu ma fiicna laakiin wuxuu isku qancinaa may waa xaaladdu waa ronta marka hadhowt waxaa laga yaaba inuu ku weydiiyo sheekh arrin maaragtay maal aan si uun kusoo shaqeeyey ma kasoo xaji karaa ma ku weydiinayn markuu lacagtan aruurinayo laakiin wuxuu ku weydiinaya hadhowto haddii la dhinto karfan ma looga samayn karaa wax ma laga sadaqay karaa ma laga xaji karaa taasuu ku weydiinaya laakiin dhinaca ay kasoo socoto shaqo ku male culimadu mana kala tushana marka qofku xataa mararka qaarkood uu dareemaa in aysan arrintu caadi ahayn waxyaabaha marka xaaraanta ah oo laga shaqeeyo wax 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 la dhihi kara maaha waxaad moodaa saacadda la ii fiirina marka inaan anuguna aan la tartamo waa ku khasbanahay aayadihii iyo xadiistii haddaan akri tagno hawshu way sii adkaaneen laakiin maadaama dad intaas maaragtay khayrka iyo cilmiga iyo qurqurinayay oo afka aan ka qaadan aad tihiin carabtu waxay tiraa yakfi min alqilaadati ma axaata bilcunuq macnaa haddii uun furayaashii hore laydin dhiibo inta kale ad la socotiin walaal wuxuu ii dhiibay gabay qad yajmacu almaala gayru aakilih wa yaakulu almaala gayra man jamaca qofku markii
uu maalkii soo shaqeeyo marar badan waxaa dhici karta in uu malaayiin dollar uu soo shaqeeyo laakiin intuusan firaaqo u helin uu ku intifaaco oo isagoo ku nafciyo inuu dhinto isaga maxaa dul saaran 10 dhibaato oo ah soo aroorintiisii xaaraanta uu ka soo arooriyay isagaa lagula xisaabtamaa aakhiro shilin kurbadii iyo dhibaatadii iyo wejigo-ii iyo usoo dhafridii iyo rafaadkii uu ka soo marana asagay dilati waxaa laga yaabaa asoon ku intifaacina inuu tegay yaa ku intifaaca qolo laga yaaba inaysa asxaan uga helo inay dhaxal u helaan oo la yidhaha ilaaha nooga afqabtay mararka qaarkood hadduusa xataa dhiman ciqaabta aakhiro iyo ciqaabta adduunye asagaa leh laakiin in lagu raaxaysto oo adduunyada looga faa-iidana dad kalaa leh malka isagoo hadda nool iyadoon aakhiraba la gaaro halkaanuu joogaa si xunoo wax ku raadiyaa oo xaaraan ah wuxuu u diraa walaalihiis iyo waalidkiis iyo ehelkiis iyo qaraabadiis ayagu kama warqaban ninkan inuu xaramka ku dhex jiro iyo inuu doofaar gado ma kala yaqaanin nin ahlu khayr ah lacag uun soo dira ayagu masaajiday ka galaan waa ilaahay ku caabudaan korkooda waa laga subka karaa si fiicanay ugu nool yihin waa ku raaxaystaan asagu halkaanuu joogaa wax alla wixii dhibaato ka dhaca asagay dushiisa tahay rafaadka loo maraayo iyo barafkan loo maraayona asagaa laga rabaa isagaa ku ciqaaban aakhiro marka laga tagana shilin isagaa lagula xisaabtama dadkii maxaan siiyaahu kule oo dadkaan madaa abuuray adiga hortaasi maxay cuni jireen haddaad adigu joojisada ma dhimanayaan hortaa ay noolaayeen hadda aad adu joojidana waa noolaanayaan insha allah sababto ilaahay wuxuu leeyahay anaa kafaalad qaaday adinka shaqaba kuma lehidinba risqiga taada iyo toodaba shaqa aduu kuma lehid xataa taadaada meel u hel wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha taas shaqa adi kuu taal maaha wallahi meel adigaan uga soo tegay ilaahay waa gurigay ku noolaayeen hebel waa jiranay daawada sokorta u baahnaa hebel waa hadda weligiis u baahnaa waagaas maxaad u qaban weyday dadkaanu awal waa noolaayeen hadeerna waa nool yihiin hadhaweytana waa noolaanay haddaad xalaal ku tari karto ha haddaad xalaal ku tari karin faraha ka qaad xalaashii xaaraantii markaad soo aruurido laba dhibaataba way dhashaa mid adduunye iyo mid aakhiro mid adduunye dhashaa oo xoolihii markaad suntaan ku dhex darto hadda qof cunayo waxaa laga yaaba inuusan jirin cunto dhacday 2 sano ka hor cunto dhacday qof kaa yeelay iyo cid cunayda inaysan jirina dhici karto oo uu kuleeya caafimaadkii khatar u tahay war xoolahan xaaraantaad cunay cunto waa hore dhacday waa ka khatarsan yihiin tan waaba sun hubaal ah midaan dhacday waxaaba dhici karta inaad badbaado laakiin tan waa sun qooshan marka nabigu wuxuu yihi salawaatullaahi wasalaamu calayhi khataraha ka imaanaya in xaaraanta la cuno isagoo ka hadlaya xadiid uu abu hurayra uu soo warinayo ya ayuha nnaas xadiid aad taqaaniin dheer in allaha طayibun laa yaqbalu ila طayiban وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم حديث دار ومسلم كوريوي نبي يقول كشاكينا خساروين كدشا إن حول حرام قفك عنو إن كمتهاي نمبر 2 wuxuu jabiyay amarkii ilaahay oo ahaa in xalaasha la quuto xaaraantana la iska ilaaliyo waana arrin mu'miniinta iyo nabiyadii iyo rusushii dhan arrin amar lagu wada siiyey qof walba inuu fartoomo laga rabi nabigu wuxuu sheegay qof leh tilmaamaha ilaahay markuu qofku bariyo tilmaamihii lagu mutaysan jiray in ilaahay aqbalo
tilmaamo badan isagoo leh haddana ilaahay uusan waxba ka yeelin. nabigu wuxuu sheegay tusaale ahaan nin safar dheer kusoo jiray, qofka musaafirka ducadiisa waxay u dhowdahay in la aqbalo. number 1 waa musaafir, safarkiisu safar yar maahan, yutiilu safar. عليه حديث وحكو شيء قفك تلمامه وحاجرة لغم متيستو إن إلهي ودعوة أقبله دعاء أقبله سوى تلمامه لا حدنا إنه إلهي وحكى أقبله تلمامه محاكم إذا قفك ومسافر سفر كيسو وداري هاي موقال كيسو وموقال قف مسكين أو تباليسن ودن درك موقته ودي هالسن ورفرفك يا رفاتك كم وقت إلهي أبيهاي وحالة إن لون نحو مدن يكجرا وحنا بيقول رأسيي صلوات الله وسلامه عليه لبدا قعمود يكر تاج لبدا قعمود مركو كر تاجو إلهي مركو قفكو قعمه كر تاجو ومؤمنك قعمه إبرة وحبل قصة الردين إلهي أنت سوى كريم سنيا ساس ما سميه إلهي حصوصية قعميه كرو تاجي وتلمان كلا أو كلفته إنه قفك وحنا أنت صار سجوا السمايي حدنا إلهي وحكى أقبل ما كو وصوته معته نبي يقول حيري قف كان حرنا لسوس يجري حد درك أوسيته وحرن وحقوعنا وحرن بابورك قوته وحران إيه تصالح وحيبها لمدك استعمالك وحد واستعماله هو حرام أولنا وحل سوسي يجري وحيان حرانتا marka waxa fogo yiri nabigu oo aan fududayn in wax laga aqbalo ilaahay intaad barido in laga aqbali waayo wax fudud ma qiyaas teleefankaaga gurigaaga gubtay albaabkii laga soo galay xaqiisuba ka bilowda dabku meel aad ka baxdana male ama tuugo iyo balaaya ku hareereeday waxa damacday inaad wacato nambarada loogu tala galay marka qofku khatar galo hal iga soo gaaro emergency inuu wacdo teleefankii wuxuu yiri waa go'an xaaladda maxaa dareemay markaas xaaladii ugu darneed adoo ku jira oo ilaahay mararkaad u baahneed mar walba ilaahay u baahan tahay laakiin xaaladii ugu darneed adoo ku jira ad ilaahay u qayla dhaansatay lagu yiri teleefanku waa go'an خلاص وأديك يعقدت سؤال الإسلام قد قدمتين وحنكسر كوبا واحد ربي إنا نشاقو تصالوين أصحابتي يا النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي تابعينتي كل كدم بيه لكن وحال يقرأ إن وقتي إدلادي وحنكسر كوبا مركب وحيابها شيدان ودتك وكو قلدو هلمد وكميدا هلمد وأحسيابها قفك إنه سجى إلى لك الحرانت هل شيء واحد جردتك أو شيطان كوكو قلده وحيابه شيطان كوكو قلده حق مالك وحكم إذا إنه كذا دعيه إن خير بدن وكوكا بنايه ومساجد كل سايو وضدك تواليسن وكساعداي وأهلك وكساعداي ساسو كذا دعيه واحد أركي ضدك مجتمعات كذا كل وحقفكوا كذا وحيابه مخدرات كأ ومندورياش وحاسو كذا مساجدك العك بدن ku bixiya wuxuu haystaa haduu masaajid dhiso oo howlahaas galo in arintu ay fiican tahay ama waa burcad badeed ama waa burcad dhuleed ama waa burcad diineed waxa laga yaabaa inuu marka uu haysto hadii uu waxa sameeyo in xaaladdu ay fiicnaaneed taas wax laga aqbalay ma mid labaad waxay burburinayaan waxaan xaaraantahay waxay hor istaagayba acmaash xataa aad sameynaytay النبي يقول عليه صلى الله وسلم عليه لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول
salaad aan daahir qofku ahayn laga aqbali maa, qofkii asoon weyse qabin salaad laga aqbali maa. sidaas oo kalena wax uu sadaqaystay oo meel xaaraan uu ka keenay, qululka waxay ahayd tusaale ahaan maalka dowladda la dhaco iyo waxyaabaha lamidka ayadana laga aqbali maa. waxaan kusoo afmeera insha allah tacaala hal sabab oo kamid a waxyaabaha ama laba sabab ugu yaraan waxyaabaha qofka uu uga gaashaamo kara ah inuu xaaraanta cuno. midda koowaad waxaa weeye wixii ilaahay siiyey inuu ku qanco oo u fiiriyo kuna qanco raallina ku noqdo waxa ilaahay isaga u qoondeeyey oo loo qorsheeyey, ee uusan fiirin dadka kale waxay haystaan. hadduu fiiriyo hebel oo uu yiqiin oo 10 malyan sii marayay oo uusan aqoon inuu xalaal iyo xaaraan meeshuu rabo ka keena, uusan shaqo kuma lahan, laakiin uusan aqoon, hadduu qofkaas fiirsado oo la tartan uu kaas la tartamayo iyo xoolo jacayl uu daba raaco, wuxuu ku dhaca hog uusan hadhowbita si uga baxo aysan fududayn. waxaa la rabaa qofku inuu ku qanco waxa ilaahay siiyey, risqigiisuna waa u imaanaa. nabigu wuxuu yidhi naf dhiman oo go-aydaah ma jirto wixii adduunkan ay ku lahayd ayadoon la siin, qof walba wixiisa waa hela. laakiin nabigu wuxuu yidhi fa ajmilu fi talab, qaabkaad u raadinaydin ood wax ku goobaydin kaliya quruxsada, laakiin mar walba intii lagu qorad helay. waa aragtay carabta qaar waxay yidhaahdeen low tagri garya luxoosh geyr risqak ma taxush, macnaa sida xayawaanka adka u orda oo dheereeya haddaad xataa u ordo oo aadan waxba reeban wixii laguu qoray waxaan ahan soo helmay. marka haddaad tartiib u socoto iyo haddaad dheeraydaba intii laguu qoray bisaad hele, wakti ha iska dhumin. midda kale oo looga gaashaanta waxaa kamid a qofku inuu ilaahay baryo, allahuma kfinii bixalaalik can xaraamik, inuu ilaahay baryo oo ilaahay uu ka baryo inuu xalaasha uu ku kaafiyo oo wixiisa u barakeeyo, xaaraantana uu ka ilaaliyo. marka waxyaaba badanaa jira oo la isticmaalo, laakiin insha allah tacaala maadaama waqtigu iga dhamaaday intaas ayaan kusoo kooba. wasala allah wasalam calaa muxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin. جزاك الله خيرا الشيخ عثمان علي فارح. محاضرة نسوج جلسيات يات ونفسنا يدنا عبدنا يتابتي ولا لا وحنا بين أويسيو ثلاث تمر كبعدي وحجرة نسشة يوجوز قدرته كبعدي إلا وقت قادو عرير وياه دورك عسر كنتو بحيوان نسشة يوقدنته كبعد عصرك iyo doorka inta u dhaxayso waxa jira doona laba muxaadaro inwaanada hadayna xasuusiyo waxa kamid ah kayfa nurabbi abnaana sidee aan arurteena u tarbiyeyna iyo mid ku xigteen waxay noqon doontaa al-ithbaat ala-diin kusugnaashaha diinta sidoo kale maqribka iyo ishaha inta u dhaxaysa ina laba muxaadar kale jirta su'aalaha iyo fiqiga arrimaha fiqigana waxay noqon doontaa محاضرة أولى حيث مغرب كي شاهد إلى هذا. أد أد وما سنتهين. جزاكم الله خيرا.